السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسن أخياري ميلكستو أجوكتان جمعة مبارك ومالنمو جمعة برنامج كنا وكي وقوري صبح نمو تاريخ دون واسدح يا لباتنك بشمي سنة كالبكون يشان يا لباتن barnaamijka saaka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobo muhiim ah oo ku saabsan wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka Mareykanka ayaa ku baaqay in nuclear lagu dhufto magaalada Gaza oo daakum laga dhigo. hadalkaasi oo saameyn weyn yeeshay ayaanu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa muran ka dhashay magacaabistii xalay Netanyahu uu magacaabay ninka madaxda u noqonaya hay-adda sirdoonka gudaha ee Shabaag. dhanka kale xuutiga cabsi laga qabo diyaaradihii waaweynaa ee Israa'iil tagi jiray oo mar kale ku celiyay inaanay u soo socon Israa'iil, inkastoo Israa'iil ay cadaadis saarayso ay doonayso in diyaaradahaasi ay dib shaqadooda u bilaabaan. haddaba wararkaasu iyana wixii ka soo kordhay waan idiin soo gudbin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa Iiraan iyo Mareykanka oo kulamadoodii shanaad maanta yeelanaya oo goordhow uga furmi doona magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga, iyagoo ka arinsanaya xaaladda nuclearka Iiraan xilli rajo aan wanaagsanayn laga qabo kulanka in natiijo fiican ka soo baxdo. haddaba qodobadaas ayaynu saakay barnaamijkeena subaxnimo ku faahfaahinaynaa. waxaa soo kale aan idin xusuusinayaa maanta waa Jimce, janalkeena qisooyinka Nadaara 2 waxaa ku jirta qisadii toddobaadkan oo aad u xiiso badan. dadka qisooyinka xiiseeya halka ayay markaa u wareegi karaan oo ay qisada ka daawan karaan. waxaa soo kale aan idiin soo dhigi doonaa qaybta commentiska iyo fariimaha barnaamijkan. fariinta ugu koreysa ku dhufo si aad toos ugu tagto oo aad u daawato qisada toddobaadkan. asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena subaxnimo saakay oo Jimca. haddaba barnaamijka saakay waxaynu ku bilaabaynaa muran xoog leh ayaa ka jira dhanka Israa'iil saakay kadib markii xalay uu magacaabay Netanyahu nin madax u noqon doona hay-adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee Shabaag. haddaba arrintan waxay keentay in markaa dad badan ay ka falceliyaan, Netanyahuna ay ku tilmaamaan inuu mar kale xadgudub ku sameeyay shuruucda u yaala ama u taalla waddankaasi Israa'iil oo markaa dhibaato fara badan dhinaca sharciga ay ku keenayso sida ay leeyihiin. haddaba aan idin tuso Al-Jazeera saaki waxay ka qoraysaa warbixin ay leedahay khilaafaad xoog leh ayaa ka jira Israa'iil gudaheeda kadib markii ninka la yiraahdo Zeni loo magacaabay madaxa sirdoonka gudaha ee la yiraahdo Shabaag. haddaba waxaa la sheegayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu mar kale abuuray xiisad ka dhex taagan gudaha Israa'iil kadib markii uu u magacaabay nin generaal oo lagu magacaabo David Zeni madaxa hay-adda sirdoonka gudaha Israa'iil ee la yiraahdo Shabaag, kaasoo bedelaya ninkii hore ee la yiraahdo Liron Bar. arrinkan ayaa waxaa la sheegay in uu kala kulmay Netanyahu eedeymo ballaaran oo aad u culus. waxaa durbaba bilowday mudaaharaadyo xoog leh oo ka dhacaya Israa'iil oo looga soo horjeedo tallaabada Netanyahu. qaraarka Netanyahu ee Israa'iil ayaa waxaa la sheegay inuu meel ka dhac ku yahay shuruucda waddankaas, waxaana ay sheegeen in arrintani ay ka hor imaanayso amarkii dhowaan ay soo saartay maxkamadda sare ee waddankaas, taasoo diiday in markaa magacaabistiisu in xilka qaadistiisu inay sax ahayd ninkii hore ee la Ronen Bar. waxaana la sheegay inay hadda khilaafsan tahay arrinkan. haweeneyda la taliyaha waa xukuumadda ee dhinaca sharciga ayaa iyaduna hore uga digtay Netanyahu inuu tallaabada qaado, balse arrinkan uu ku dhaqaaqay. waxaa sidoo kale la sheegayaa in mas-uuliyiin fara badan oo mucaaradka ka mid ah ay arrinkaa aada uga falceliyeen. marka waxaa socda xataa xalay mudaaharaadyaa dhacaya, fawda dhacaysa. sababtu maxay tahay? xataa ninkii abaanduulaha ciidanka wuxuu leeyahay 3 daqiiqo ka hor inta aan lagu dhawaaqin ninka ayaa la iisoo sheegay. caadiyanna waxay ahayd abaanduulaha ciidanka in lagu wargeliyo mar hore lagala tashado ra'yigiisa la dhagaysto ay ahayd. ninkan marka waa nin noocaya. ninkan marka waxaa leeyahay waa nin Binaqaviir iyo Smotrich ay wataan. waa nin 1934 dhashay
qoys diineed qoys leeraa ka soo jeedaan nimankan waxay sheegtaan birqabiir iyo xisbiyo diimeedaan wadanaa yidhahdeen dhinaca diinta oo jarjeernaa marka ninkanna qoys noocaas ka soo jeedaan nimanka marka keensaday booska ninkaas waay laakiin waxaa leeyahay arrinkaa ma shaqayn doonto maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa iyaduna waxaa laga sugayaa saacadaha soo socda inay go'aan soo saarto arrinkaa ku saabsan qodobka halkaas ayaynu kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkeena subaxnimo saaka jimcaha aanu ku faahfaahinayno wuxuu yahay cadowtinimada iyo dhibaatada loo qabo dadka Falastiin ee masaakiinta ah oo haddaba dhib ka aan u yarayn oo dhulkoodii la baabiiyey maalin walba saas loo garaacayo ayaa xildhibaanadii Mareykanku waxay bilaabeen inay ku digtaan reer Gaza iyagoo aan cid ay ka baqayaan jirin waxay leeyihiin nuclear ha lagu dhufto dambi ka weyn miyaa jira hebel ha la soo dilo ayaa dambi ahayd ha la soo diladii midii ugu weynayd nuclear ha lagu dhufto niman xildhibaanaha oo leh ayaa waxaa la yaaban yahay cadowtinimada iyo dadka Falastiiniyiinta sida cadow loogu yahay oo markaa in dhibaatadoodu ay ku raaxaysanayaan Mareykanka mas'uuliyiintiisa haddaba marka warkii ugu dambeeyay sheekadan la yaab kale waxaa saaka qoraya warbaahinta caalamka waxay leeyihiin nin xildhibaana oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Mareykanka ayaa wuxuu ku baaqay in Gaza lagu duqeeyo hubka nuclear-ka ah in lagu duqeeyo ayuu markaa sheegay inay tahay haddaba ninkan xildhibaanka wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka Congress-ka aqalka Mareykanka waxaana la yiraahdaa magaciisa Randy Fine wuxuu waraysi siinayay telefishinka la yiraahdo Fox News ee dhanka Mareykanka laga leeyahay waxaana uu ka hadlayay arrinta Gaza wuxuuna sheegay inay tahay Gaza in lagu garaaco hubka nuclear-ka Fine ayaa wuxuu sheegay in arrintani ay markaa ka dhigan tahay sida dhibaatada dadka Yahuudda loogu geysanayo uu ka xun yahay wuxuu ka hadlayay weerarkii safaaradda Israa'iil shaqaale ka shaqeynaya lagu qaaday oo laba ka mid ah lagu dilay magaalada Washington taasoo uu sheegay inay markaa keentay qadiyadda Falastiin la leeyahay oo uu ku tilmaamay qadiyad xun inay tahay iyadoo markaa qadiya Falastiiniya wax la yiraahdo aanay jirin oo wax xun ay yihiin oo markaa oo dhib badan marka ninka xildhibaanka u fiirsada television weyn oo fadhiya waxyaabaha la yaab kale waxa ka mid ah dadka kale ee adduunyada jooga ama mas'uuliyiinta ah haddii waxyaabo noocan oo kale ay ku dhawaaqaan markiiba indhaha laga soo galaya cunaqabatayna lagu saaraa leeyahay dhaqaalahaaga la joojiyay sababtoo ah waxa ku baaqday inaad gumaad samaysid oo dad la laayo ayaa ku baaqday maxkamada lagu geynayaa waa qaylinaya reer galbeed laakiin baashu say u socotay hadda iyagii ayaa waxba iska qaadayn ninkii xildhibaanka television weyn u fadhiyaa wuxuu leeyahay nuclear ha lagu garaaco oo nimankaa nuclear ma u dhiman maxaa u dhiman nimankaas guryahooda la burburiyey la baabi'iyey marka waa yaab waxyaabaha qaar cadowtinimada ay qabaan nimankan gaalada ah waa la yaabaysaa wax aan caadi ahayn ayaa meesha marka ka socdaa laleeyahay marka qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa sheekada kale ee barnaamijkeena saakay oo jimcahan idinku soo gudbinayo waxay tahay Israa'iil waxay waday inay shirkadihii waaweynaa ee duulimaadyada soo celiso oo macnaha ay tiraado war soo laabta xaalku waa degan yahay nimankan waxay leeyihiin nimankii saacada ka hor siiriga yeeray malaayiin qof godadka ku galayeen oo Bangorion aan garaacna lahaa ma annaga u imaanayna ma ha sheegin marka diyaarado waxaa jira waqtiyadii hore ay u qabteen macnaha qaar waxay yiraahdeen 2 week kadib ayaan ka fiirsanaynaa inaan ku laabanayno in kale qaar waqti ay qabteen qaarkii marka waqtigoodii hadda la gaaray ayaa haddana dib u cusboonaysiisanay macnaha waxay leeyihiin maadaama waqtigii la gaaray waa ka fiirsanaynaa ma ka fiirsanay maba soo soconay taagay Israa'iil markaas halkaas gool xanaaq waa la yaabay haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray shirkadaha diyaaradaha ajnabiga ayaa sheegay inay